live trading keeni maanta oo talaada 22 July sida arkaysaan suuqa buy baan ugu jirnaa mid kamid ah modelada aan ku trade gareyno asalkeena waa 38 bib target keenana waa 64 bib ilaa 60 bib insha Allah waan kaga bixi doonaa trade ka entry point uu jooga insha Allah waan isla arki doonaa waxa uu ku dhamaado alxamdulillah sida arkaysaan trade ka TB1 buu nasiiyay 30 bib sida xagan ka arkaysay ilaa 31 bib marka hadda break even buu trade-ka noo yaalaa sidoo kale faa'iidana waa ka xiranay haddii uu risk la yimaado oo dhaqaaq xawli uu nagu soo laabto insha Allah waan manage gareyn doonaa sida hadda uu muuqato waa fiican yahay still waxaanu ka sugaynaa insha Allah inuu buy fiican sii sameeyo candle-kan uu soo qaato kadibna uu baxo laakiin haddii uu maaragtay uu soo reverse gareeyo suuqa insha Allah waan manage gareyn doonaa inta inay sheegay uu candle-ka sameeyay sida u jeedaan week buu noo qaatay and then boom inkastoo dhaqaaq fiican still oo dhaqaaqa aan doonayay una suuqa sameynaynin laakiin waa isla arki doonaa insha Allah haddii uu yaraan uu TB2 ilaa high-ga uu na gaarsiin karo sida aragtaan TB2geeni iyo gabaanba trade-ka update baa ku sameynay konton bib baa insha Allah uga bixi doonaa sababtoo ah suuqu yacni marka horeba isagoo dhaqaaq fiican aan sameynayn haddana waxaa moodaa inuu ringing sameynayo yacni the last four candles waxay ku dhamaanayaan waxaa la yidhahdo dhammaantood rejection xoogan bay soo sameynayaan oo waxay noo dhaafi lahaayeen key levelka 3390 sida arkaysaan ama 3390 price-kaasay dhaafi lahaayeen marka hadda waa candle-ka afraad oo 15 minutes that means 1 hour oo waxa weeye consecutive ku jirnaa trade-ka oo aan weli 36 bib buu hadda noo dhaqaaqay marka insha Allah candle-kana arki doonaa hadduu isagana uu ku xirmo waxa weeye yacni sida hadda haddii uu ku xirmo oo body close uu ku sameeyo candle-ladii hore marka way fiican tahay insha Allah waa hayn doonaa nagasi candle uu yaraan wuxuu buu noogu daray karaa bibiska laakiin hadduu kana gudaha ku soo xirmo rejection xooggan uu soo sameeyo diamond trade-ka insha Allah intaaba ku manage gareyn doonaa so guys soo aragtaan candle-kii sida uu ku xirmay confirmation buu sameynayaa inuu suuqu sell yahay so nagasi candle lagu furmay waa arkaysaan waxa weeye sell buu isaguna soo sameynaya marka gabaanba trade-kan halkaas ku manage gareyn uga baxaynaa nabadgelyo